kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada waraysigan gaarka aanu la yeelanayna madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo asaguna la jooga magaalada London. waxaan jecelahay marka koowaad inaan uga mahadceliyo waqtigiisa qaaliga oo nasiiyay oo kula hadlayo ummadda Soomaaliyeed iyo TV-ga Universal. waraysigan ayaanu diiradda ku saari doonaa xilliga uu xukunka hayay wixii uu qabsoomay wixii uu qabsoomi waayay iyo wixii dhaliilo iyo eedo loo soo jeedshay waagii uu xilka joogay aan weydiin doonaa iyo sidii loo samanta bixin lahaa maaldeeq maadaama uu horena madaxweyne u ahaa oday Soomaaliyeedna uu yahay dadka iyo dalkana uu daneynayo inay horey u socdaan iyo weliba dhawaan xisbiga looga dhawaaqay magaalada Muqdisho waa soo gudoomiyaha ka yahay arrimahaas ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa waraysigan haddii Ilaahay yiraahdo iyo qaar kale oo fara badan. mudane madaxweyne mar labaad sharaf iyo karaamo ay noo tahay inaad nala fariisto waqtiga qaaligan si soo dhawow marka hore. waa mahadsantahay Cabdixafiid. waa gartay mudane madaxweyne haddaad noo dul martid xilligaad xilka qabsatay kursiga ku wareegtay waxyaalihii markaas kuu qabsamay ama priority-gaaga ahaa rifoodi saartay maxaa ka mid ah? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الحفيد هذا وما سنتهي طبعا 2012 مركان أنا طلعت النمذي دلكو كيان أما هيان دهرو صوغلو كجري لغسو بالله إلى عرتا مارين والبقون وحباكو سود السوماي ددالة بدنا لصوة مري أنا وتين وحي كسي خاصة كو هذي ما دام أو حلقي أو كميل قارن مدى إلى ماتي الدولة دي رسمي هيد الصومالي وجوه الرئيس بربرك كدب أي تمدي لبي 20 سنة كدب يعني رجدا dadku ay qabeen iyo sida degdega in mushkilada wax xalismaan ay rabeen waxay kamid ahayd waxyaabihii uu nahaystay haddana siyaasad cad oo muuqato oo ku saleysan warqadeeni 6 tiir muxuu ahay siyaasadda xindaabka siyaasadda aan dejinay ayaan ku shaqeynay waxaan aad iyo aad uga shaqeynay inaan 6daas tiir mid aan u socodsiino 6daas tiir dhammaantood waxbaa un laga qabtay laakiin isku meelna ma joogin mana in badanoo kamidana ma dhamaystirmin marka waa sababta xilligeeni markuu dhammaaday aan u qaadanay kelmadii ahayday qabyo qofkeeda dhamaystirto oo inay qabyo ahaayeen oo inaan dhamaystirna aan rabnay laakiin siyaasad aad iyo aad u qeexan oo cad oo aragtideeda lahaan layaan la nimiday caqabaduhu waa badnaayeen awooddu waa yarayd duruufaha dalka ka jiray aad iyo aad ay muxuu culays badan u lahaayeen laakiin haddana wax badan oo kamid ah qodobadaas aan dejinay tiirarka ahayd ayaa dalka aan ka qabanay muddadii koobneed aan joognay. waa gartay arrimaha ugu muhiimsan oo tiirarkaas laf dhabarto ahaa waxaa kamid ahaa amniga oo kale weli magaalada Muqdisho qaraxyaa ka dhaca xilliga adigu madaxweyne ahayd haddadan idinka hor labadiina adiga iyo madaxweynaha hadda jooga ka horba maxay ku dhacday ayadoo ciidamada inta tirada la eg oo ajnabiga dalka ay joogaan oo ay u joogaan nabad ilaalin haddana inay Muqdisho gudaheeda kaliya ay amni aad ka dhigi weydaan? horta Cabdixafiid waxaa la yiraahdaa ushi ul lagu jimeeyo aan leeyahay way dheeraataa ama waa gaabataa. Soomaaliya ma aha dalka kaliya ee burburka iyo dagaalada sokeeye iyo dowladaha nugul ay soo mareen. waxa aan la diriireynaa argagixisada caalamiga ah oo adduunyada dhan maanta ee qatarta xoogga ku haysa waay waa run saa u sheegtay ciidamo xoogga dalka Soomaaliyeed waa jireen ciidamo nabad ilaalin oo muxuu dhowr 20 kuna waa joogeen laakiin haddana way aragnimada adduunka marka la fiiriyo tiradaas aad iyo aad tida oo ama ciidankeena oo ayaguna 30 kun ahaa iyo 250 kun oo ciidan runtii adduunyada standardska jirka horta way gaabnaa waa koow annagu markaan nimiday ciidanka ayagoo dagaalamay oo shabaab muxuu ahaay aad iyo aad u riixay yaan nimida annaga haddana qatarta shabaab waad ogtahay maalmo anoo joogay oo weliba madaxtooyada aanan tegin yaa hoteelkii aan deganaa aniga igu soo weerareen inay aniga khaarijiyaan ma ayan ka quusana intaasoo jeeroo kale isku dayeen marar kamida madaxtooyada inta soo dhexgaleena 100 mitir meel aniga ii jirta ninkii ugu dambeeyay shabaab ahay yaa lagu istaajo lagu dilay guriga cadaaladda maxkamadda ahayd waatay weerareen baarlamaanka waatay weerareen laakiin waxaan soo gaarsiinay mustawo koow horta Muqdisho aad looga fogeeyay aanay haweyse karin inay weeraraan hay-adaha waaweyn oo baarlamaanka madaxtooyada guriga maxkamadda bangiga dhexe meelahaas inaanay haweyse karin oo markii dambe ay u leexdeen dadweynaha hoteeladan gal maqaayadan lagu qadeynayo oo qarxi waxaas marka awood darri
ayay ahayd la gaarsiiyey meeshaas. laakiin waxaa intaas barbartii la dhismihii ciidamada annaga waxaa nimiday ninka jananka iyo ninka askariga ayagoo isku mishaar ah ayagoo isku garaam ah. waxaan ka shaqaynay in maxaan ku yidhahday gradekii ciidanka uu lahaayo askariga iyo dablaha iyo muxuu aliflaha ilaa jananka in ay darajadoodii kala qaataan mishaarkoodana ay ku qaataan. lacagtii raashin ahaan iyo gunno ahaan iyo samafal ay ulahaayeen aan laba jibaarnay meeshaan ugu nimiday. qalabayn annagu 4 sano anaga aan talada joognay annaga cid caalamka ka tirsan oo hubna siisay ma jirin. budgetka dowladda Soomaaliya ayaa qoraga lagu dagaalamaya xabadda lagu dagaalamayaba laga iibin jiray. waa qodob. intaas waxaa noo barbaryeelay ciidamada Amisom dhaqaaq yar ma sameynaynin haddii aanay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo hor jooga aanay jirin. ciidamada Amisom si u qalabaysan yihiin waad aragtay. marka askariga hor kacayo asiga ka hormarayo oo dagaalka galayo ee aan si fiican u qalabaysnayn dhibaatada. marka meesha shaqada la qabtay iyo tabarta la hayay runtii shaqada la qabtay aad iyo aad uga badneeday tabartii iyo awoodii birigaas muxuu ahay jirtay welina waa taagan tahay. 100,000 kun bal fiiri dal Soomaaliya waa dal masaakin bal fiiri Ciraaq oo dal qani ah oo lacag haysato oo 400 kun oo ciidan leh oo ciidan ciriya ciidan bad midaan u shaqeynayn leh weli waa la tacaalisa. bal eeg maxaan ku raadayay Afghanistan oo billions of dollars lagu bixiyo oo sidoo kale ciidamadooda cir iyo dhul iyo wax walba u dhan yihiin haddana weli way la dagaalamaysaa. marka Soomaaliya waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo caalamka argagixisadu ay dagaalka ku hayso Soomaaliya horumar aad iyo aad u baran ayay dagaalka samaysay. haddii aanu halkaa kasoo tagno xilligii adigu aad joogtay waxaa dhismay marka laga reebo maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka kale oo dhan ayaad ku guuleysatay xukunkaagii inuu dhiso. cashar aad ka baran kartay markaad dib u fiirisid maanta xaaladdu siday tahay iyo intaad xilka joogtay dhismahoodii oo is leedahay waxbaa u baahnaa in halkaa laga saxo nooma suurtagal ma jirta. wal ma muxuu ahay dhismihii maamul goboleedyadu howl oo aad iyo aad u culus oo adag ay ahayd waqti badanna u baahan. waqtigii ay ku habbooneyd iyo duruufihii ku habboonaay oo markaas aan maqnaay ayaa horta culayska ka keenay. iyo dadka Soomaalida dabcan dee booga wada qabo wada danqanayo qof walba wax dhibayso cabsi ku jirto oo kala aamin bax uu jiray waxaa u dhan uu kalifay. dowladda federaalka ee Soomaaliya berigaasi xoog waxay saartay inay waxaan ay dhismaan cunugu inuu dhasho cunugii dhashaa kori kare cunuga aanan dhalan lama kori karo. annaga targetkeena waxay maamuladii inaan dhisno laakiin meeshaas kuma dhammaanin hawsha hawl soconaysa ayay ahayd. laakiin waxaan ku iyadoon dagaal ka dhicin la isdilin dadku aanay kusii kala irdhoobin yaan annaga maamulada 4 maamulo oo kale ayaan dhisnay. Jubbaland ugu horeysay dabcan oo xogaa ugu culays badneed laakiin ayadana waa ku guuleysay intii dambana waa dhisay. laakiin waxaan rabaa marka inaan meeshan hal mid aan ka cadeeyo dowladda dhexe annaga aan joognay maamul goboleedyadaas dhismay waxay u baahnaayeen ma u awoodin. maamul dhismay amnigiisa leh shaqaalihiisa leh nidaamkiisa oo dhan leh resources u baahan dakhli aan lahayn yay ahaayeen. marka sidii lagu hayn lahay waxa waaye hay-adaha samafalkana waa taqaanaayo toos inta ula xiriiraan haddii inta iskool laga dhisa dee wax ay sameynayaan toos laakiin dowladda uma soo marsiyaan. waa garan kartaa marka Soomaaliyada maanta qofku muxuu ugu xilanayaa maamulku inuu Muqdisho ku xirnaado maxaa isku xiraya yani masaalixda aan la taaban karin ee wadaniyada iyo Soomaalinimada iyo dowlad jaceylka marka laga yimaado ninka hogaamiyaha dowlad goboleedka joogaay wuxuu ku taagan yahay dab laana mushaakilaadkaas oo dhan ku furan cid ugu ceersado u baahan yahay. annagu wixii awoodda dhaqaale ay markaas saamaxaysana waa siinay taladiina waa siinay inay talada dalka dhan ay wax ku lahaadaan oo ay ka arimiyaan oo ay dal waxa isku keen haynayo isku soo keen jiidayay oo ay Muqdisho u imaanayeen mar walba oo ay diyaar ku ugu helanay waxay qabeen muuqaal ah in wixii dawladdu ay kartayna ay siisay dawladdu inaanay khatar ku ahayn fargelin iyo muxuu ahay ka dabagidis iyo annaga inaanan ku ahayn talada dalka iyo dalku direction ku aadanay inay cod ku lahaayeen inta aan annaga ku meel marno ku soo gaarsiinay intaasay ahayd wayna noo shaqeysay waqtigeena. waa gartay laakiin waxa sidaas arintaas aad ka soo sheekaysay daba socotay in ay ayaga laftigooda u madax banaayeen inay meesha rabaan ay tagaan dawladda la xiriiraan qaarkood ay yiraahdaan safaaradda waxaan ka furanay Yemen maamul goboleedka Puntland oo kale ayagoon dawladdii dhexe kala tashanin mandate aan u lahayn waxaas
meeshay rabaan ay tagaan oo heshiise iyo ay la soo saxeen qaarkood ay dhulal iibinayeen mayse ku muuqanin inay meeshaas fawdo ay ka taagnayd tushaba ha iska wanaagto hadday rabteen maya sideedaba horta dhisida dowladnimada soomaaliya wax mar dhacaya maaha 30 sanaan marayna ka horna dhibaatadii dhacda waa la garanaya qofka nidaamka federaalka ee dhisan qofka xarunta joogaya hadduu ku fikir wax walba inuu kontrolo marna ma suuro kari karto inuu kontrolo waa number 1 ayadoo mashaakilaadka aan hadda soo sheegayo dhan ay haystaan dadka muxuu dowlad goboleedyada jira midda kale ilaa xaddi waa inaan aqbalnaa inay mas-uul yihiin dad Soomaali ah dadkoodii ay doorteen mas-uuliyiin ah dalka u danqanayo laakiin haddii aan dhahno dalka uma danqanayaan waa tuuga waa la cararayaan waa waxaynayaan ma shaqaynayso qaladaad way dhacayaan qof kasta oo shaqo u dhaqaaqa horta waa in la ogolaada inuu khaldami karo kadib uu saxmi karaa wax annaga dowladda dhexe joognayna khaladan samaynayna ma marka qaarkood ayaguna dabcan way samaynayaan laakiin haddii tallaabtii la qaadabo iyo anigu inaan kontrolo wax walba aan gacanta ku hayo dee dowlad dhexe oo muxuu ahay centralized system ee nidaam waxaan leenahay wax ay u madax bannaan yihiin wax dowladda dhexe u madax bannaan tahay iyo wax mar walba in laga wada tashado la wada leeyahay go-aanka gaaristooda marka aniga waxaan qabaa nimankaas in fursad la siiyo inaan muxuu la kontrolo oo maxay xag u aadeen maxay intuu aadeen maxay hebel ula hadleen aan la dhihin muddadii 4 sano aan joognay annaga dalka dibadiisna islama aadin dibadna uma dacwoonin islamana muxuu ahay cabasho aadin waa wada joogno wada shaqeynay laakiin waxaan kaloo dhan tallaab kastoo ay qaadaan haddii qalad uu ku jiro waa soo baxaya waana la saxaya laakiin inay qaldamaan inuu ama qof inuu qaldamo sidiisaba mas-uulna uu noqdo ma aha wax oo qariib ah maaha waa gartay waxaad tiri dabadda maysan aadi jirin oo dhibaata ma jirin waxaan xasuusnaa xilligii doorashada waxyar ka hor dagaalkii gaalkacyo foosha xumaa ee dhiigga ummadda soomaalida ku daartay ciddii rabta baa ka dambeysay hadday ahaan lahayn maamul goboleedka puntland iyo hadday ahaan kan galmudugba waxaa jirtay maamul goboleed dhan looga yeeray imaaraadka aduguna aadan qeyb ka hayn madaxweynihii dalka ayaa tahay inay aadaan imaaraadka oo ay ku shiraan maysan gaf ku ahayn qaranka iyo ummadda soomaaliyeed ayagoon waxaba yaraatee maan dheyda dibadda u haysanin ay ummadaha kale kula shiraan maya sideedaba arrintaas aad sheegtay iyo dagaalka oo gaalkacyo horta cilaaqaad ma lahayn dagaalka gaalkacyo iyo safarka imaaraadda ay madaxda ku aadan cilaaqaad ma lahayn waataan hadda sheegayay haddii xataa ay khalad ahayday inay sidaa yeelaan 4 sanaan soo wada joognay mar kale lama soo xusi karo haddii markaas ay dhacday xataa wax dib looga wada hadlay oo layskula noqday oo asbaabti keentayna meesha laga bixiyey oo la daweeyey ahayd annagu intaan isla joognay marne dibadda dacwana uma tegin inaan dibadda ku shirnan umaanan tegin waa gartay haddaan ka gudubno arrintaas federalismku marka ummadda soomaaliyeed ay fiirisay dad fara badan ay fiirsheen nooca la qaadanayo ilaa haatan lama ogo go-aan lama gaarin dastuurkii waa qabyo in dib loogu noqdo in federaal la qaato iyo nidaam dibadda laga soo dhoofiyey dalkeena markaa duruufihiisa fiirisa dad isku dhaqana isku diina isku afa isku jinsi ah ma kuu muuqato in dib loo fiirsho maya aniga ma ii muuqato aniga nidaamka federalismka ah inuu nidaam wanaagsan oo dalka muxuu wanaag badan u keenayo oo kalsooni badan keenayo oo aan kala tag keenaynina midnimo keenayo inuu yahan u arkaa waxaan arkaa sida ugu sahlan ee dowladnimada Soomaaliya ay ku hana qaadi karto dalkoo dhan ay ku gaari karto inuu nidaamkaas yahay nidaamka kale ee barbar yaalla ee centralizedka dowladda dhexe ama nidaamka decentralization regional autonomy waxa la yiraahdo mas'aladu waxay tahay dowladda muqdisho ka jirta ee federaalka ee dowladda qaranka ah ee meesha ku dhisan goorma awoodooda inta baahday laawi cadana gaaraysa raas casayrna gaaray raas gamboonina gaaray meeqasan inuu qaadanay dadka deegaan kasta joogaa inay inta tashadaan dad mas'uuliyiin doortaan waasas laakiin waxa meesha ka maqan maxay tahay annaga nidaamka federalismka nimaana naqaano ma ahayn waxaan weli noo dhammaystirmayn qawaaniintii nidaamka federal member states dowladda siday u wada shaqaynayaan qawaaniintii aad nooma dhammaystirna oo weli waa naga qabyo dastuurka ayaa kamid ah nooma dhammaystirna weli waa naga qabyo dhaqankuna waa dhaqan nagu cusub barashadiisaan ku jirnaa marka in laga cararay in la waxay ma qabo waa kow qofka mas-uulka ee la doorto ee madaxweynaha jamhuuriyadda loo doorto ama wasiirka dowladda dhexe loo doortaay wuxuu mas-uul ka yahay inuu ku shaqeeyo waxay dadka ku heshiiyeen waxay dadka isla ogolaadeen nidaamka federalismka Soomaaliya meel inta ku jirta isla soo ogolaatay ma lama diidin dad hadda inta soo istaagay banaanka nidaamka federalismka dhibkaan aan ku qabnaa aan ka noqono ama aan ka tashano yiri oo dacwad noo keenay intaan annaga talada joognayna ma jirto
marka nidaamkaas nidaamka keliya soomaaliya ku heshiis tahay waayo waa in la dhaqan geliya haw socdaa waxaanan aaminsanahay haddii sida iyo saxda loo dhaqan geliyo maslaxad badan inay soomaalida ugu jirto dowlad dhisida soomaaliya inay maslaxad ugu jirto waa gartay waxaa jira musuq maasuqa waxa la yidhaahdo waxaa lagu eedeeyaa dowladdaadii UN monitoring groupkuna dhowr jeer ay soo qoreen adna aad ogtood akhriday musuq maasuq baahsan oo meeshii ugu sarreysay gaaray xilliga adigu madaxweynaha ahayd musuq maasuquna wajiyo badan buu leeyahay hoos baan ugu degan doonaa musuq maasuq intaa lagugu eedeynayay dowladdaada lagu eedeynayay in koox yar ah oo adiga kugu xiran ay hantidii qaranka ayagu jeebka gashteen maxaa ka jira maxaa ma aniga ma aaminsani mana qabo qofkii haya cadaynna inuu keeno waa jeclaan lahayn oo wasiir hebel xildhibaan hebel shaqaalahaagii hebel ahaaya intaan oo lacaga malaayiintan qaatay in la waa jeclaan lahayn laakiin waxaan rabaa musuq maasuqu sidiisaba waxaa lagu hor istaagi karaa institutions annaga dalka waxaa nimiday ayadoo public financiga waxba aanay ka jirin bangiga dhexe aanu shaqaynayn xisaabiyaha guud aanu shaqaynayn hanti dhowruhu aanu shaqaynayn wasaaradda maaliyaddana aanay shaqaynayn bishii September 2012 aan talada nimiday October iyo November iyo December aan budget dejinay markii ugu horeysay burburkii kadib baarlamaanka inta la geeyay la ansixiyay ilaa maantana Soomaaliya horta budgetkii sanad walba budget la sameeyo xisaab xirkiisana waa la geeyaa bangiga waa koow qodobka labaad aan ku sheegay waxa waaye annagu waxaan isku dadaalnay dadweynaha Soomaaliyeed inaan la wadaagno dakhliga dawladda soo galo meelaha uu ka soo galo iyo kharashka dawladdu ay bixisa meelaha ku baxo bil kasta sodonkeeda wasaaradda maaliyadda waxay soo publish gareyn jirtay dakhliga dawladda soo galay meelihii uu ka soo galay iyo kharashka dawladda meesha uu ku baxay intii labadii sano ugu dambeysay weliba gaar ahaan oo systemka uu soo dhismay uu yimiday bishii Maarso ee sanadkii 2017 ayaa wasiirka maaliyadda ugu dambeeyay xilka uu wareejiyay marka aniga xilka wareejiyay oo ra'iisul wasaare la magacaabay golay wasiirada la dhisay wasiirka maaliyadda aniga waqtiga aan joogay bishii Maarso xilka wareejiyay bil kasta aakhirkeeda hadda weli hadaad wasaaradda maaliyadda website-keeda gasho waa ku jira bishii Maarsaana ugu dambeysay in dakhliga dawladda iyo kharashka dawladda si transparent loo soo dhigo waa koow qodobka labaad annaga waxaan sameynay system la open government dawlad furan oo waxna la su'aali karo waxna laga qaban karo aan dhameeyo Cabdixafiid waxaan rabnaa marka waxa aan qaban karnay oo intaas ka weyn maxay yihiin waa koow madaxweynaha jamhuuriyadda taariikhda madaxda soo jirta aniga iga horeysay inta iga dambeysay waa joogaan wasaaradda maaliyadda on the record maanta laga soo heli maayo amar aniga aan bixiyay ama xisaabiye guud ama lacagta dawladda lagu weligay miisaaniyadda dawladda amar kama bixin aniga mana maamulin mana ka shaqeynin laana mandate-kayga ma ahay warkaa socday madaxweyne musuq maasuqu dabcan halkaa keliya ma galo waxaa jira eedeymo ku saabsan musuq maasuq dhuleed dad shaqaale la siiyey dad markaas adiga ka agdhowaa waxaa leedahay waxaas habeelatay waxba kama jiraan fiiri madaxweynuhu mas-uuliyaddiisa inay caddahay la rabaa dee nidaamka oo dalka ka jiray dadka Soomaaliyeedna ay la soo istaageen haddii nin wasiir ah nin agaasimo ah nin meel jooga uu qalad sameeyo qaladkaas in la sheego waa laakiin madaxweynuhu agaasimo kastoo meel joogana ma ilaaliyo wasiir kastoo meel joogana ma ilaaliyo annaga wax dacwad ah oo hanti la isdaba mari qof hanti dhulba waxbaa iga maqan dhahayo oo dacwoonay waan aragnay shakhsiyaad kama hadlayo laakiin nidaamka dawladda ah annaga checks and balances aan sameynay hanti dhowraha guud ee dalka ee ka jiray annagu ma recruit garaynin open bid lagu furay ninka ugu qualifiedsanay Soomaaliya la keenay yaa loo dhiibaa meesha joogay wasaaradda maaliyadda aniga on the record waa lacaga inta la ii keenay aan bangiga dhexe la geeyo aan iri waa on the record welina way taala marka de wixii dacaayada waa halkooda laakiin ma ogoli in ay dawladdeeda inay corrupted ahayd ma ogoli ma ogoli waa gartay dadweynaha u diinayna xaq baa u leedahay ra'yigaaga aragtidaada waxaa kaloo jiray doorashadii dadweynaha 2016 dalka ka dhacday waxaa la tilmaamaa la sheegaa in xulafadu labada aqalba ay ku shubteen oo musuq maasuq baahsan halkaas uu ka dhacay waxaa leedahay arrintaas waxba kama jiraan aniga wax lugu aan kulahay waxaan ka ogahay musuq maasuq dhacay mid ma jiro adiga markaad tidhaahdid ma raba inaad kala qaadid adiga iyo dawladdaada adaa kursiga ku fadhiya adaa madaxweynaha mas-uulka ahaa
arrintaas maxaad kaga jawaabtaa dowladdu miisaaniyadeeda waa ku sheegaya waabay caddahayba bajeday ku timid bajedaynu ku bixaysay lacagta dowladdu ay qarash garayso tuugnimada ku timid xagee ka timid meesha sababta ka timaado muhiimadda meesha lacagtu ka timid ma ahan muhiimaddu waxa weeye lacagtan in la bixiyay oo maaluush iyo musuqmaasuq baahsan oo ka dhacay meeshay lacagtu ka timid muhiim waa cabdi xafiid dowladdu lacag ay leedahay nidaam ay leedahay budget ay leedahay lacagteeda meelay ku jirtaa meeshiina on the record waa tirsan tahay waa xisaabsan tahay laba qofoodoo duurka wax isku siisay dowladda muxuu ay ka galay oo adiga cabdi xafiid haddaad qof kale lacag siiso ma corruption dowladdu samaysay miya laakiin dowladda lacagteeda inaan ilaalina anaga mas-uulna aan nalaga saaray dowladda lacagteedana mechanismka iyo institutionska ilaalinayaan dhisnay waana la ilaaliyey waa gartay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilligii uu kugu wareejiyay xilka si qurux badan buu u wareejiyay gobonimo ku jirto adiga laftiyaagu sidii iyo si lamida ayaad yeeshay si qurux badan baad u wareejisay Shariif Sheekh Axmed wuxuu ku siiyay waqti aad ku shaqaysid 4 sano farahu ka qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadii 8 bilood buu dib u soo noqday dowladda asagoo fursad siinin xisbi uu ka garab furay dowladda ka shaqeyn la arrintan waxa kale maya waxaan qabaa number 1 horta aniga dalka weligii kama tagin inaan madaxweyne jamhuuriyadda ka noqday maan qaxooti u noqonaa dalka uga cararaya aniga dalkan markii ugu dheera taariikhda intaan joogo on dalka ka maqnaadaan ka maqnaay 18 bilood aan dalka ka maqnaay intaan jiray weligii 18 bilood oo xiriirta Soomaaliya kama maqnaan sidaas ay tahayna dowladdu markay timid doorkii aan qaadanay ama sidaad sheegaysa adiga baad xil wareejinta ay tahay xukuumaddii la dhisay iyo muxuu ay taageeradeedii iyo waxay tahay waliba aniga publican ah banaankan taagnaa xukuumadda laga leexdo hal la taageero hal la ansixiyo waa ku maalin intaan meel soo istaagay xukuumadda saan ah iyo intay ku xun tahay iyo kana inta ana weligay sanad iyo labada sano ku dhawaadkaas la joogo ma qaban qaanuunka dalkaana tilmaamaya oo xisbiye in la samaysto oo muxuu ahaa ani siyaasadda kamaanan bixin xisbiyaan sameeyey waana guli waa ku noqon rabaa xamar hadda ku noqon haddaan London ka tago xisbigayga inuu shaqeeyo jamhuuriyadda dhan ku baahan rabaa oo dadka Soomaaliyeed dhan ku baaho taas macnaheedu ma dowladda maxaan u siin waayay fursadaan siiyey ma haysto ma dacaadeeyo lama diriro waa booqdaa waa isla hadalnaa madaxweynahan gurigiisa xafiiskiisa ugu taga ra'iisul wasaarahan guriga wasiiradoodan guriyaha ugu tagnaa ku soo booqanaa waxa aan ka hadlaynay dowladda aan garanayn marka oo dowladda ka shaqeeyay xasan shaqlooyada si kala aan ku dhaho طبعا adigu waa jeclaan lahayd in waqti lagu siiyo aan buuq iyo xisaab lagu furan laakiin aan eegno xilliga xisbigan u yimid iyo xubno ku jira waxa jira xubno xisbigaaga hadda ku jira oo maalin ku orolinay xilligii doorashadana farmaajo codka siiya ayagu public u sheegay maantana adiga durbaanka ku tumay qaarkood la tijaabiyay oo ay fashilmeen ma waxaad leedahay xubnahan awood ma siinaysid ay ku hadlaan adoo gadaal ka riixaya wax lagu eedeynay fiiri horta waxaan rabaa waxaanan garanay sababta xisbi in la sameeyaa ay problem u tahay waa koow xisbiga xasan sheekh 22 xisbi oo la register gareeyaa ka horeysay oo jirtay xisbiga aniga odaga ka ah hadda u yimid waxa 22 xisbi ayna mushkilo u ahayn xisbiga xasan sheekh mushkilo u yahay horta waa su'aal qofkii keenay inuu ka jawaab u baahan waxa soo haray qadiyadan mar walba ku celisay adiga ka hadashay hebel oo fashil ani qof fashilanta ma aqaan sideedaba qof fashilantay ma aqaano dad Soomaali oo soo dadaalay dowladda maanta jirta meesha ay jirta soo gaarsiiyaan arka waaya aragnimana kasbaday oo shaqeynayo waa qodob labaad waxaan dhaqanka liita oo dadka Soomaalida in la aamusiyo adiga waa fashilantay adiga mucaarada tahay adiga ma hadli kartid waxay ka soo jeedaa dib u socod waaye iyo afminshaar waayadii kacaanka nagala soo bilaabatay oo sulx iyo manifesto waaye dagaalka sokay ku soo xigtay oo murtad iyo argagixiso waaye markii dambe ku soo dambeysay dhammaan erayada noocaas oo waa eray dadka lagu aamusinayo oo fikirkooda xorta inay cabiraan lagu diidayaa dadkana waa siyaasiyiin siyaasadday ka shaqeeyaan siyaasadda tii wanaagsanna waa sheegayaan tii liidato qaloocanna waa sheegayaan in dalka la duminayo ma aha dimuqraadiyaddu asalkeedaba waxay tahay fikir kala duwan iyo masaalix kala duwan in la maareeyo marka dadka haddaad tirahdid fikirka aniga qabo qofka fikirka ka duwan qabaahi waa qaran dumis iyo waa dowlad dumis iyo muxuu u hadlayaa ani waxaan u arkaa lala dagaalamayo dowladnimada Soomaaliya annaguna intaan joognay waxna waa nalaga sheegi jiray dadkana mana xirxiri jirin mana dili jirin waa gartay haddii aan xisbiga laftigiisa xoogaa yara la joogno inaxantiisa ma oga waxaa la sheegaa xisbigaaga inuu dhinac kaliya ka raran yahay haddaan si kale u dhaho in uu qoys kaliya u badan yahay
madaxweyne Soomaaliyeed baa soo noqotay Soomaalinimo iyo horumar iyo dadka isu keentay lagu tuumayaa Soomaaliya oo dhan ba dadka weedii maxaa ku xiraadi ku geeyo qoys isku tii mar kale waxaan rabaa hearsay ama waxa la yiraahdo waa meeshooda anugu kama shaqeeyay xisbigani hadda la aasaasay waa lagu dhawaaqay weli shirweynihiisii qaran oo koobaad xataa weli lama qabanin registrationkiisii iyo sharciyadiisii socdo xisbigu muddo shaqeeyo oo baahi waayo oo meel ku ekaado yaa su-aashaas aad sheegaysa ay bannaan tahay laakiin xisbigani waa xisbi qaran waxaana qaanuunkaana xisbi qaran ka dhigayo oo dalka dhan inuu ku baaha laga rabaa shaqadaasi waa shaqadii haddaan dhalanay weli ord maanaan gaarin laakiin xisbi qaran oo muuqaal qaran leh oo jamhuuriyadda oo dhan meel walba degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta inuu ka jiro dad representative iyo dad oo muxuu ahay taageero ku lahaad xafiisyo ku lahaadaan rabnaa wixii aan qabanayna waxaan jeclaan lahaa su-aashaas 2 sano kadib inaad na weydiisid oo hadda aadan na weydiinin marka waxaa leedahay haddaan ku fahmay isaxna xisbigaygu qoys iyo qolo gooni uma badna cid walba ku jirta xisbi qaanuunkan ogolaanayn xisbi qoys gooni ah inuu shaqeeyaba annaguna qaanuunka ixtiraam weyn aan u haynaa waa gartay haddaan halkaa uga gudubno arrintaas ku saabsan xisbiga waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaad ahayd madaxweynihii u horreeyey oo isagoo fadhiya oo jagada haysta ka dega magaalada Jigjiga dalkaas deegaanka Soomaali galbeed oo ay gacanta ay ku haysto dowladda Itoobiya maxaa kugu kalifay maxaanan igu kalifin waxaanan garan waxa ay balaayo u tahay in Jigjiga madaxweyne ama qof mas'uul oo Soomaaliyeed inuu tago inay mushkilad tahay madaxda ajnabiga markay gobolladeena tagaanna ayadana ay mushkilad tahay oo maxaa ninkan ajnabiga ninkan dawladda Kenya ka tirsan muxuu xaq u tagay ninkan dawladda Itoobiya ka tirsan muxuu gobol hebel u tagayna ay crime tahay aniga haddaan daba maro on dalalkooda gobollo aan tagayna ay crime tahay waa wax isqaban kara ma meeshaas waxay u baahan tahay antii la dhalaaliyo madaxweyne dhulkan Soomaali waa iska leh Itoobiya haysata sharciga ummadda Soomaaliyeed wax ku qoran oo ogyahay weeye marka adigu tagtay waxay sharciyeynaysaa inaad raali ka tahay dhulkaas inay Itoobiya leedahay mushkiladu waa saas haddii wasiir uu tagay kuguma raacsani ma qabo inay sharciyeynayso adaa qabtid sidaas ani sidaas ma qabo maxaa qabtaa aniga waxaan qabaa dhul Soomaaliyeed oo naga dhaxeeyo deegaan naga dhaxeeyo oo qataraha labada dhinac ka jiraahi meesha kaliya ay ka jiraan waa xuduudda dhinaceedaas iyo dhinacaana mushkiladuhu ka jiraan argagixisada isaga gudubto qabaa'ilka Soomaalida u gudbo dhibaatooyin iyo duruufo adag kula kulmaan mugee dhinaca kale u gudbaan in maslaxadda dadkaas laga shaqeeya oo cilaaqaadka la hagaajiya oo dadkani ay muxuu xagga haday u gudbaan inta digu dadkeena wax xoolo dhaqato aanay dhibtoonin in laga shaqeeyo muu arko in dhulkii la bixiyo in la dhulka heshiis caalami ah lagu aqbala ama lagu diidaa laakiin booqasho qof meel uu tagay dhulna ma bixiso dhul ma dhiibto kuweena marka dhulkeena muga la yimaadana laga ma qaadanaynin waxaa jirtay go'aan aad hadda ka hor qaadatay ku saabsanaa joojinta qaadka dalka Soomaaliya laga joojiyo go-aankaas waa qaadatay ummadda Soomaaliyeed oo riyaaqday dhibaatada qaadkuna waa hay dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan boo la ogyahay Uhuru Kenyatta waa Muqdisho yimid immediately waa isbedeshay maxaa kugu dhacay يعني adigu de wixii dhacayaad aragtaan laakiin backgroundkii wixii ka dambeeyay iyo wixii soo socday oo dhan sheekada joojinta qaadka iyo fasaxidiisaba sheeko dheer oo soo socota ayay ahayd events ma ahayn process duruufaha nagu kalifayna dowladda Kenya Uhuru Kenyatta bas ma ahayn number 1 wax badan oo hadda inaan public ka dhiga aanan rabina jiroon oo ku kala bedelanay number 2 dad Soomaaliyeed ka mid ah barashar hadii dad Soomaaliyeed badan u riyaaqay ay jireen dad Soomaaliyeed badan ay jiro dabkooda inuu duugmay u arkay oo ilmahoodii inaanay biil u heli karin u arkay oo inaanay u diyaar garoobin arintaas oo inta loo diyaar gareeyay options kale alternatives kale loo sameeyay oo laga saaraan oo arkeen barasharka marka anaga dhinaca Kenya nooga yimaaday kan dhinaca Soomaalida sideeda nooga yimaaday dadka inta qayliso idaacadaha tagto wasaas laakiin inta kale dacwoonayso calaacalayso oo dabkooda inuu duugmay ayadana ku calaacalayso barasharka nasaari sana way jirtay arrimo kale oo markii dambana shaqeey waayo oo siyaasadeed oo aan ahayn muxuu ahaay waxa hadda adiga aad cabiraysay laakiin Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeyay oo cilaaqaadkooda taabanayna waa ku jireen markaan dhinacyo walba fiirino maslaxadda sida aan u joojino abrabtiga aheeday in laga roonayo oo process in lagu joojiyo ay habooneed yaa noo soo dulmartay saasaan ku deynay weli arrimaha gudaha ku jirnaa waxaan jeclahay markii u horeysay fursadan ku siino arrintii ku saabsanayd gabdhihii Soomaaliyeed Sacuudiga u shaqo tagay maxaa ku kala farankaas anigu waxaan rabaa
inaan aada u caddaadaan rabaa gabdho soomaaliyeed oo sacuudiga maalin walbay u shaqo tagaan inta ka lugeeyaan koonfurta soomaaliya koonarka ay boosaaso lug ku tagaan oo doon ay raacaan oo badda ku dhammaadaan oo yeman ka degaan oy lugeeyaan oo inta la qabsada la xirto la addoonsado yaan ka badbaadinay inay gabadha ayadoo dowladeedii wakiilka ah oo sharciyadeeda leh oo xafiis wasaaradda shaqada safaaradda ka furan yahay oo la ilaalinayo xuquuqda ay leedahay oon lagu xadgudbaynin inay tagto ay shaqayso midda kale gabar keliya ma ahayn kategori shaqaalay ahayn gabdhaha ku jiray wiilal darawallaha ku jiray xamaaliya ku jiray wax badanaa ku jiray laakiin magacii domestic labor markii la yiraa gabdha uun loo qaatay fursaday ahayd nasiib darro meeshii aan rabnay ma ayan gaarin laakiin waa wax beri in laga shaqeeya ay tahay 15 kun oo qol lagu bilaabay ilaa 150 kun oo qof oo Soomaaliya inay shaqo heshay ku socotay haddii domestic lagu bilaabay maalinta dambana injineerada iyo dhaqaatiirta macallimiinta ayaa shaqo ka heli lahaa go-aan aad iyo aad sax u ahay maantana weli loo baahan yahay in la sameeyo lagu dhiiradaa loo baahan yahay shaydaan dibadda taagan oo gabaraa la iibgeeyey iyo meelaha ka dhaqdhaqle nolol u mahaayo gabadhiina waa socotaa waa taa cadan oo qarxiis hadda madaaficda qarax ka dhacdo waa kusii dhex socota qof jooji kartana malaha in la nidaamiyo diyaaradda airboortka muqdisho inta ka baxdo airboortka jiddo lagu soo dhaweeyo register kaar la siiyo qof shaqaale dowladda oo ka mas-uula u joogo taleefon inta usoo dirtay ay dhihi karto dhibkaana ay hayso in loo abuuro waayo waxaan annaga ka shaqaynay laakiin gabdhaha shaqadooda waa socotaa waa gartay hal qodob baa igu haray arrimahan dabadnoo ka baxaya dowladdan hadda cusub oo jirta waan ogahay inaad tiri mowgal in la aflagaadeeyo ama xumaan laga sheego oday Soomaaliyeed madaxweyne Soomaaliyeed mas-uul Soomaaliyeed waan ku ammaananta waan laga filanay arrimaha dibadda ama guud ahaan waxay qabteen oo maanta ku muuqata oo ay ku ammaanan yihiin oo idin suurtageli waayay ma jirtaa waqtigiina dunuufka Soomaaliya ku kalifta horta dowladdu inay socotaan rabnaa meeshaan annagu uga tagin inay joogto iyo meel ka sii hooseysa inay tagta ma rabnaa inay kor u kacday socoto oo ay horumarto yaan jeclaan lahayn marka wixii horumaraha u gaaro u qabsoomay dowladda in ayada la weydiiyaa ficnaan lahayd oo ayada ay cabirtay sheeg waxaad ku muuqdaa ma jiraan aniga wanaaga ii muuqdo mar walba wax xumaana iima muuqdaan waa gartay haddii aanu usoo noqono siyaasaddii iyo adiga laftigaaga xisbigaaga aada ku dhawaaqday oo tiri waxaan rabaa inuu dalka oo dhan uu qabto 4 sano oo dahaba ku soo martay waxa aad qaban weyday oo maanta ku muuqda maxay yihiin madaxweyne anigu waxba ma qaban waayinbo inaan wax qaban waayay ma qirsani wax weyn oo Soomaaliya u qabtay qabyad kaga tagtay ma 10 sano soo socda 20 sano soo socday qabyada ahaan Soomaaliya waa xikmad kuma salaysna aqli badanna kuma jiro in maanta in Soomaaliya qof yimaado inuu u kumbeer gareeyo adduunyada maanta sida ay tahay Soomaaliya 30 sano dhibaataysneed way socotaa laakiin 2000 dawladdu ku meel gaarkeed ugu horeeyay markii la sameeyay maanta Soomaaliya way kala duwan tahay unique mushkila gaar oo adduunyada inteeda badan aanay qabin oo argagixisaan way qabtaa Soomaaliya wax annaga markaan joognayna guulaan gaarsiinay kuwii naga horeeyay waa gaarsiiyeen kuwaanina ma dabcan mugeed xilligooda dhameystaan la qiimeyn doonaa laakiin wax badan aan soo qabtay wixii soo qabtayna wax inaan ku sii daraan diyaar u ah meesha ay joogto aan ka sii qaado waa gartay time will tell insha Allah haddii aan horey u sii socono arrimahan waxaa muuqata oo jirta in hadda ka hor inaad tiri in kala ma xasuusto laakiin waxaa maskaxdayda ku jira adaa isaga doona Soomaalidu qofkay mar doorato mar labaad ma doorato inaad tiri hadda ka hor sax maxaa soo doonta hadda way haddaan lagu dooranay horena aad ogay waxa dabcan oo la soo maro taariikhda in la qariyo iyo in laga gabado in laga aslax batariis that's waa 60 maanta xorriyada qaadana ilaa maanta saxeed laakiin aniga waa isku day in mar labaad la doorto la ima dooran haddana marka inaan isku dayan diyaar u ahay mar saddexaad inaan isku sii dayan diyaar u ahay taas waa halkeeda laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego in la indooran waayo ma aha muxuu ahaay arinta oo muhiimka ah waxa muhiimka waxay tahay inaan ahay madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee termkiisa dhameystay madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee baarlamaankii la doortay ka shaqeeyay inuu asna termkiisa dhameysto oo ku muteysta maanta xildhibaan abadiya inuu baarlamaanka ahaado laakiin dadka Soomaaliyeed anaa ka shaqeeyay waxa mar walba la igu riixayo oo dad badan ay rabeen in extension la sameeyo oo 2 sano lagu sii daro dawladda anaa diidanay welina waa diidanahay dhaqanka dawladnimada inuu hagaagaan rabnaa teeramka maalintii fiir 3 waxyaabood muhiim ah
qofka mas-uulkaa la dooranayo si sharci inuu xafiiska ku yimaado, inta uu joogo xafiiskana inuu si sharci ku maamulo, maalinta waktigiisii dhammaadana si sharci inuu uga tago ama ku joogo. haddii la idooro lahay sifa sharci ah laigu doorto waa joogi lahaa, haddii la idooro waayana sifa sharci aan uga tagay kii la doortayaan muxuu ay soo dhaweeyaan u dhiib. dhaqanka dowladnimada inuu socdo la dhaqaajo u baahan waa kaasa. marka aniga sharaf iyo karaamo iyo haybaday ii tahay inaan madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda oo intaas suurtogeliya inaan ahay xil wareejiye oo madaxweyne kaleoo la doortay ku wareejiye inaan ahaadaa ka weyn in la idooro waayo. xaqiiqatan mudan madaxweyne tibifartiyo adiga iyo madaxweynihii kaa horeeyeyba shaki kuma jiro in si qurux badan oo sharaf ku jirto oo xalaal ay wareejisay, waana wax ummadda soomaaliyeed ay ku dayanayso oo muuqdo wey. kuwa hadda joogay iyo kuwa ka dambeeyana aanu ka filanayna markii waqtigooda ay timaado. hase yeeshee waxaa jiray wadahadallo socday berigii aada xukunka haysay adinka iyo hargeysa udhexeeyey. wadahadalladaasu ma aysan hana qaadanin sababo fara badan awgeed, iyo waxa laga wada hadlayay oo runta oon mar naba la isku sheegin dusha laga salaaxayay. maxaa ku talinaysa? cabdixafiid, horta adigu de wadahadallada qayb kama ahayn. in dusha laga salaaxay iyo in hoos loo galayne meeshii lagu gelay adigu maadan joogin. marka anigu hadalladaas guulay ahaayeen. waxaanan u leeyahay in la isku yimaado oo la isla soo hor fadhiista lafsideeda horta tallaabta koowaad oo muxuu ahay guushu ay ka bilaabataba intaasay ahayd. qadiyadda meesha taalla laakiin qadiyad weyn waaye, wakti dheerna way u baahan tahay, dhiiranaan badanna way u baahan tahay. hogaankii somalilan ka jiray iyo kii soomaaliya ka jiroon anugu aan madaxda u ahayba meelo badanoo dhiiran waayeen waa jirtaa oo dhiiranaan loo baahnay ay ka gaabiyeen. laakiin arrintaasi arrin oo runtii in cilaaqaad furmo, la wada hadlo, la isla joogo, la isku yimaado mar walba lafsadeedaa horumar ahayday, waana socotaa weli oo ma kala go-in. maxaad xasuusataa oo ama dhankooda ay ka gaabiyeen ama idinku laftigiina dhinac inaad ka gaabiseen waan isleedahay in la saxay u baahantahay sida kuwan uga faa'iidaan? wada hadalladu weli waa socdaan oo haddaba dowladaha weli waa wada hadlayaan. ma doonayo inaan halkaa idaacadda ka sheego ninkii cabsaday iyo ninkii dhiiraday iyo ninkii dhiiraday. waa gartay. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya, gabagabaan ku sugnaa, wax yar baa ii dhiman waqtiga noo haray. waxaan jeclahay inaan fursad kuu siiyo inaad dhowr qodob kusoo koobtid waxyaalihii xasan sheekh maxamuud uu qabtay oo isleedahay alleeleh waxaas waa ku qanacsanaayo maray dhaleeno maanta waa ku faani karaa ka xasan ahaan adiga iyo tiimkaagiiba. aniga runtii wax badan tiro ma leh waxa aan ku faani karo oo runtii dowladeedii iyo xilliga aniga aan jooga qabtay. aniga waxaan badbaadiyey dhulka soomaaliya inaanu kala tegin oo biyaha soomaaliya aan la qaadanin oo baddii soomaaliya aan difaacay. dhiiranaan iyo geesinimay u baahnayd ayadoo rag badan oo mas-uuliyiina oo ama talada igula jira ama la taliyaala ay baqayeen ay lahaayeen ma guulaysan karno, dacwad caalima kuma guulaysan karno, yaanan aadin. yaan u bareernay annaga dacwadii aad iyo aadaan rajo badan uga qabaa soomaaliya inuu ku guulaysan doonto dacwaddaas haddii alla yidhaahdo. qodobay ahayd dalkii oo shabaabku ay iska degeen. shabaabku waa urur ku dhisan ideolojiyo, ideolojiyadana citizenship ama wadaniyad ma laha, xuduudana ma laha. waad ogeeday mid cad iyo mid indha buluugale, mid indha cad iyo mid indha madow, intaba soomaaliya in laysugu keeno isu yimaadeen. sababta ugu weyn oo waxaas u dhaceen waxay ahayday dhulkii soomaalida oo badankiisaahay tala cid ka mas-uula aanay jirin oo qof la weydiiyo war meesha maxaa ka jira la yiraa aanay jirin. in maamulkii dowladnimada aan baahiyo oo dowladeydii ay baahiso, aniga keligii maahane la baaho oo dalka cid ka mas-uula maanta ay jirto. ciddaas waa tabar yar tahay iyo dalka dhulka ma wada kontaroosho iyo waxyaaba argagixisadii weli waa joogtahay waa la dhihi karaa. laakiin kuwii indhaha cadcadaa iyo kuwii timaha cadcadaaya maanta ma joogaan. argagixisadu soo yaraatay badankeeda soomaali kala la diraysa maanta ku kooban tahay. dalkii in dowladnimada ay ku baahdo oo nidaamka federalismka oo soomaalidu hore ugu soo heshiiso oo sanado badan dhaqan geli waa u dhaqan galo. waxyaabaha kale ee runtii aan ku faanay ka mid tahay. waxaan ku faani karaa nidaamkii dowladaha. waxaan u imiday xukuumad 26-keeda wasiir hal guri ay wada degan yihiin. maantana magaalada muqdisho haddii 3 meelooda 2 ka mid ah wasaaraduhu waxay degan yihiin guryo ayagu ay leeyihiin oo guryahoodii ama dib loo dhisay ama dib loo dayactiray. waxaan maanta ku faanayaa institutionska dowladnimada inay jiraan oo ay maanta shaqaynayaan. dowlad sanadkii bajetkeedu 60 milyan ka yaryahay
dakhligeeda budget yaan dheer dakhligeedu 60 milyan ka yar yahay yaan imid oo ayadana zero ka soo bilowdo meesha joogto maantana budgetka Soomaaliya 300 milyan oo ku dhow yahay wali waa yar yahay aad iyo aad u yar waxa meeshaas gaarsiina dad volunteer oo lacag soo aruuriya ma ahayn institutions dawladeed oo lacagtaas soo aruuriyay waa walina qaar kale oo kamidna ay maqayeen waxaan aaminsanahay xilliga annaga aan joognay dawladnimada inaan salka u dhignay institutionska dawladnimada aan dejinay qawaaniintii loo baahnaa intooda badan aan dejinay bangiga dhexe qaanuunkiisaan dejinay public financega qaanuunka lagu maareynayaan dejinay iyo nidaamkii garsoorka xataa meelaan soo gaarsiinay inkastoo aan waxyaabaha naga qabyada oo ka mid ahay waxaan aasaas u dhignay dawladnimo dimuqraadi ah baahsan institutionskeedina maalin walba mid soo dhalanayo oo laga sii wadi kara meeshaasaan yaan soo gaarsiinay waa gartay mudan madaxweyne ugu dambeyntii iyo gabagabadii waxaa la sugayaa doorasho inay dalka ka qabsoonto haddii la yidhaahdo sharci ahaan qof iyo cod baa la yidhi waa la qabanaya idinku laftigiina sidoo kale dhadeen dadaar baad keenteen iyo duruufaad ku shaqeyn weydeen ma ku muuqataa doorasho cod iyo qofa inay ka qabsami karto geyigeena wal dawladdu sidaasay tiri talada maanta joogta waana sida fiican oo wada jecelnahay annaga dhammaanteen marka anigu ka dayra kama horkeenayo ma qabsoomi karta ma dhahayo laakiin midaan rabaa inaan caddeeyo magaalada Baydhabo ayaa dawladda federaalka iyo dawladaha dowlad goboleedyadu ay ku shireen waxay isku soo heshiiyeen isku soo afgarteen 2020 dalka inay doorasho ka dhacdo waa arrin aad iyo aad u fiican waxay ku soo heshiiyeen dawladdaasi waxa loo yaqaano doorashadaasi waxa loo yaqaano proportional representation inay noqoto waxay ku soo heshiiyeen closed list inay noqoto waxay ku soo heshiiyeen xisbiyadu in lagu tartamo xisbiyo ay ka qayb galaan waa frame good ama xayndaab aad iyo aad u qurux badan oo fiican laakiin waxa waaye arrintaasi geel sakamala waaye ninkii dhageysanaya wadaadkii geel sakamale markuu yiri iska istaago iska baxay mugta ilaa uu ka gaaro intaas ma sugin arrintaasi geel sakamale waaye wax badan oo aanan tafaasiil ah oo u baahan tahay si doorasho u dhacdo aan maqan weli oo aan laga heshiinin waxaa maqan weli aan dhammaystirmin qaanuunka doorashooyinka laftiisa weli aan dhammaystirmin waxaa maqan weli waxaan in la fasiro constituency waa maxay single waa maxay 4.5 iyo muxuu ahayd iyo vote seelasku vote seelasku qaabilsiina mas'alooyin badan oo weli xal u baahan marka mas'alooyinkaas sida loo xalliyo ayay ku xiran tahay doorasho hal qof iyo hal cod inay dhacdo iyo 2020 ba inay doorasho dhacdo hawshaas sida loo qabto oo waxaas looga wada hadlo oo wax loo wada horta sideedabana waxaa qaacidada waxay tahay wixii la isla ogolaadaa shaqaynayo haddii wixii wax ugu qurxanaa yihiin haddii wixii huriwayta ay keento tahayba marka waxaasa u baahan in laga hadlo oo dawladda dhexe dowlad goboleedyada xisbiyada baarlamaanada dowlad goboleedyada dadweynaha Soomaaliyeed kulli in miiska inta la soo saaro laga doodo tafaasiishaas u baahan doorasho 2020 inay doorasho dhacdo iyo hal qof iyo hal cod inay u dhacdo mas'alooyinkaas faraha badan oo la xalliyo u baahan tahay ugu dambeyntii su'aashii ugu dambeysay intaad xilka haysay iyo kadibba ururka al-shabaab dagaalka hayeen waxaa inta badan hogaaminayay intaan ognahay godona marka laga reebo Mukhtaar Roobo musharax weeye maamul goboleedka koonfur galbeed soo aragtaa arrinta wal qodob waa jiraa horta oo dastuuri ah oo ninkan nin muwaadin ah waaye maxkamadna inta la geeyay hadda dil iyo xabsi iyo muxuu ay kuma xukumin constitutional marka la fiiriyo Mukhtaar wax ka reebaya inuu doorasho soo istaaga ma jiraan qaanuunka iyo constitutionka marka la fiiriyo laakiin aniga waxaan qabaa sax inaanay ahayn hadda inuu soo istaago doorasho lianna mashruuci uu ku jiray oo al-shabaab ka bixidiisii Mukhtaar weli ma dhamaystirna Mukhtaar weli ma cadeynin inuu argagixisada uu ka soo horjeedo iyo inuu shabaab iyo asiga inay isdirirsan yihiin dhib ma laha shabaab dhexdooda isdiriraan maalin walba isdilaan qofkii shabaab la dirirsan macnaheeda ma aha inuu ideology shabaab inuu diidan yahay ma aha Mukhtaar waxaan qabaa inuu iscadeeyo ideology shabaab inuu diidan yahay wiilashiisii weli dhulkii jiraan banaanka jiraan wada dheer u dhimanaan qabaa maanta inuu siyaasadda iyo hoggaanka Soomaaliya qayb kamid u soo istaagahay weli waxba uga dhimanaan qabaa aniga waa gartay madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa sharaf iyo karaamo inoo inaan kula fariisano waqtiga qiimo badan iyo sida aad maaragtay su'aalaha uga jawaabtayba waa kaaga mahadcelinayaa
waxaan jeclaa intaas soo gabagabayno waraysigii aad baa umahadsantahay aada umahadsantahay waraysigan waxaa duubay oo qeyb ka ahaa aanu aad ugu mahad celinaynaa iskuna dubariday wariye cabdifataax cali shirwac waxaa barnaamijkan idiin soo saaray saaxiibkay cabdalla mudhir waxaan kaloo mahad celinayaa cali balcado isagoo laftigiisu qeyb ka ahaa inuu waraysigan uu suurto galo mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo mahad celinaynaa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca ayaa idinla socodsiinayay intaa waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aanu ku wareysanaynay madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waad mahadsantihiin